halabuurka ganacsigu waa kobciyaha dhaqaalaha. Macadka cilmi baarista iyo horumarinta ee Sidra ayaa soo qaban qaabiyay xuska asbuuca caalamiga ee halabuurka ganacsiga oo socon doona inta u dhaxaysa 16 ilaa 21 November 2015. xuskan ayaa lagu qaban doonaa magaalada Garowe gaar ahaan jaamacadda BSU waxaana ka soo qayb gali doona xubno ka socda ganacsatada bulshada rayidka dawladda aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween waxayna ka kala iman doonaan magaalooyinka Boosaaso Qardho Galkacyo iyo Garowe sidoo kale waxaa ka soo qayb gali doona dad meel hoose ka bilaabay ganacsiga oo horumar ka gaaray ganacsiga kuwaas oo ka sheekayn doona qaabkii ay heerkaasi ku gaareen maalmaha uu xuskani socdo ganacsatada Puntland qaarkood ayaa ku soo bandhigi doona wax soo saarkooda gudaha muhiimadda uu kulankani macadka cilmi baarista iyo horumarinta Sidra u qabanayo ayaa kala ah dhiirigelinta ganacsiga gudaha si ay wadajir ugu shaqeeyaan inay isdhaafsadaan fikradahooda iyo khibradahooda iyo u dabaaldegida xuska asbuuca caalamiga ee halabuurka ganacsiga inay ganacsatada yaryari la hadlaan dawladda si ay kaalmo iyo garab istaagid uga helaan xuska asbuuca caalamiga ee halabuurka ganacsiga waxa fulinaya macadka cilmi baarista iyo horumarinta ee Sidra oo kaashanaya rugta ganacsiga Puntland wasaaradda ganacsiga ee dawladda Puntland iyo hay'adda ILO ka soo qayb gal wacan